بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طبعا qof waliba wuxuu jecel yahay inuu naftiisa horumariyo hadday ahaan lahayd xagga shaqada waxbarashada ganacsiga xiriirka iyo nolosha guud ahaan laakiin xaqiiqda jirta ayaa ah in dadka intiisa badan ama dadka intooda badan aysan gaarin heerka ay rabaan heerka ay tamaninayaan sababtoo ah waxaa jirta waxyaabo badan oo dib u celinaya kana hortaagan inay gaaraan horumar la taaban karo sida cabsida shakiga caajiska iyo niyadjabka shakhsiga raba inuu gaaro horumar dhaba waxaa waajib ku ah inuu joojiyo waxyaabaha aan soo sheegnay oo dhan markaad rabto inaad horumar samayso waxaad u baahan tahay maskax fahamsan in guusha la kasban karo sidoo kale in hal talaabo aad hore u qaado inay ka qiimo badan tahay fikir joogto ah oo aan ficil lahayn inteena badan markaan rabno inaan horumar samayno waxaan isku qancinaa in beri ay tahay wakhtiga saxda ah ee aan bilaabi karno balse runta waxay tahay maanta waa maalinta ugu fiican ee aad horumarkaaga bilaabi karto haddii aad sugto maalin ka wanaagsan maanta waxaad ogaataa in maalinkaas aysan marnaba imaan doonin sidaa darteed waxa keliya ee aad haysato waa maanta waa fursad dahabi ah oo aad tallaabo hore ugu qaadi karto nolol ka wanaagsan nolosha aad maanta ku jirto mid mar waliba xusuusnow beri waa balan aan la hubin laakiin maanta waa fursad ku diyaar ah oo aad gacanta ku haysato haddaba maxaad sugaysaa maanta bilow daqiiqadan aad taagan tahay bilow inaad horumar aad samayso insha allah muuqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa 9 waxyaabood oo u baahan inaad naftaada ka joojiso si aad horumar aad u gaarto kow jooji inaad dayacdo salaada iyo guud ahaan cibaadada alleh subxaanahu wa tacaala maalin kasta 5 waqti waxaan maqalnaa xaya cala asalaad xaya cala alfalaax u kaalaya salaada u kaalaya liibaanta iyo guusha haddii aadan naadadaas ajiibin islamarkaana 5 salaadood wakhtigoodaadan ku tukan waxaad noqonaysaa qof adduun iyo aakhiraba ku khasaaray waxaadna ku dambaynaysaa cawaaqib xumo marka ku dadaal salaadaha iyo ku xirnaanshaha ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii aad rabto guul adduun iyo guul aakhiro intaba 2 jooji inaad naftaada been u sheegto khiyaalina aad ku maaweeliso nolosha dhabta ah waxay bilaabataa markaad naftaada daacad u noqoto inteena badan waxaan isku maaweelinaa riyooyin aan ficil lahayn been aan nafteena u sheegayno iyo rajada ah in wax walba ay isbedeli doonaan iyadoo aan wax tallaabo aan qaadin laakiin xaqiiqda dhabta ah waxay tahay horumar ma gaari karto ilaa aad runta u sheegto naftaada haddii aad rabto inaad gaarto guul la taaban karo fursadda ugu horraysa aad heli karto waa inaad joojisaa ismaaweelinta oo aad aqbashaa halkaaad joogto kadibna aad dejisataa qorshe aad hore ugu socon karto daacadnimada naftaada aad u leedahay waa asaaska horumarkaaga waa halkaaad ka garan karto qaladaadkaaga ka baran karto casharo oo aad ka toosin karto jihada noloshaada beenta ma dhisto mustaqbal ee way burburisaa marka maanta isweydii naftaada daacad ma u tahay mise weli waxaad isku maaweelinaysaa riyooyin aan ficil lahayn waxaa la joogaa xilligaad runta wajihi lahayd oo aad noloshaada si dhab ah u dhisi lahayd 3 jooji inaad ku noolaato xusuusta wixii aad soo martay wixii horey u dhacay waa taariikh weligooda ma soo noqonayaan welwelka iyo xasuustooda waxay kaa qaadayaan farxadda maanta nolosha waxaa lagu dhisaa inaad hore aad u socoto balse in badan oo inaga mid ah waxay ku xayirmaan xusuusta wixii hore u dhacay sida khaladaadkii laga galay fursadihii ka lumay ama xanuunkii soo maray laakiin runtaa waxay tahay welwelka iyo xanuunka xasuustaas ma bedeli doonaan wixii hore u dhacay balse waxay kaa luminayaan fursadda aad maanta haysato maanta waa fursad cusub oo aad noloshaada ku dhisi karto si ka wanaagsan shalay marka maxaad ugu xayiran tahay xusuustii hore waxaa la joogaa wakhtigaad dib u bilaabi lahayd horumarkaaga haddaba haddii aad rabto inaad hore u socoto waa inaad iska cafisaa naftaada aad casharo ka barataa wixii dhacay kadibna aad sii wadaa safarka horumarkaaga 4 jooji inaad ka cararto dhibaatada ma jirto qof adduunka ku nool oo dhib la'aan ah sidaa darteed wajah dhibaatada ilaa aad ka xaliso ma ahan wax sahlan in dhibaato ku haysata aad wajahdo xaqiiqdii dhammaanteena waxaan aragnaa murugo dhib kufid dhaabac nolosha ayaa sidaas ah waxaa la rabaa in la wajaho la aqbalo laga foojignaado lana xaliyo dhibaatooyinka oo dhan halkii aan ka carar lahayn dhibaatooyinkaas 5
jooji cabsida aad ka qabto inaad qalad aad samayso. Inaad iskuday aad samayso oo aad qalado waxay 10 jeer ka fiican tahay inaadan waxba isku digin. Guul kasta waxay leedahay fashil badan. Fashil kastana ugu dambayn waxaad ku gaaraysaa guul insha Allahu tacaala. 6. jooji inaad xasid noqoto. Abi Hurayra radiyallahu anhu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo wariyey iyaakum walxasda fa ina alxasda yaakulu alxasanaat kama taakulu annaar alxatab. Waxaan idinka digayaa xasadka ama inaad xasadaan dadka kale, sababtoo ah xasadka wuxuu cunayaa xasanaadka sida dabka uu cuno qoryaha. Akhrajahu Abu Daawud. xasidnimadu waa inaad xisaabto waxyaabo qof alle subxaanahu wa tacaala u ku manaystay aadna ka xumaato. waxaa wanaagsan inaad ku qanacsanaato rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku siiyey. haddii aad wax xisaabinaysana xisaabi nimcada rabbi subxaanahu wa tacaala uu adiga ku siiyey ee aan la soo koobi karin. kuna shukri rabbi subxaanahu wa tacaala wuu ku siyaadinaya nimcada. ilaahi subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa wuxuu ku dhahay qaala allahu tacaala lain shakartum laazidannakum sadaqa allahu alcadiim. 7. jooji caajiska, wahsiga iyo inaad iska fadhido. caajiska iyo wahsiga waa cadowga qarsoon ee horumarka. markaad naftaada siiso firaaqo badan oo iska fadhido ama aad ka gaabiso howlaha muhiimka aad leedahay, waxaad si tartiib tartiiba u gelaysaa burbur nafsi ah iyo nolol aan horu socod lahayn. nolosha natiijada leh ma ahan midda fadhiga lagu gaaro, ee waa midda lagu dhiso dadaal, aqoon kororsi iyo ficil wax ku ool ah. haddii aad rabto inaad naftaada sare u qaaddo, waa inaad si joogta ugu mashquushaa shaqooyin wax soo saar leh, ha ahaato xirfad ama waxbarasho ama howlaha kale ee kuu dhabeynaya hadafkaaga. 8. jooji isku dayga ah inaad iibsato farxad malaabaal ah ama inaad dadka kale aad ka raadsato farxad aan jirin. haddii aadan ku faraxsanayn qofka aad tahay iyo waxaad haysato, ma jirto cid kale oo farxad ku siin karta ama waxyaabo kale oo qaali ah oo aad soo gadato oo farxad aad ka heli karto. sidaa darteed ilaahi subxaanahu wa tacaala tala saaro, naftaada ku kalsoonow, waxaad haysato ku qanacsanow, waxaad dareemaysaa inaad tahay shakhsiga ugu farxadda badan dunida. 9. jooji inaad ceebaha dadka kale aad raadiso kadibna aad samayso cambaarayn, caay iyo cillad sheegid joogta ah. wakhtigaaga qaaliga ah ha ku berdareen inaad raadiso ceebaha dadka kale iyo sheegidda cilladahooda, sababtoo ah waxaad luminaysaa fursad dahabi ah oo aad naftaada ku horumarin karto. runtaa waxay tahay qofka wakhtigiisa iyo tamartiisa ku lumiya raadinta ceebaha dadka kale weligiisa ma gaari doono horumar la taaban karo. taa beddelkeed waxaad diiradda saartaa horumarinta naftaada iyo hagaajinta noloshaada. horumarka dhabta ah wuxuu ku yimaadaa markaad diiradda saarto wanaajinta naftaada halkii aad wakhtigaaga ku lumin lahayd raadinta khaladaadka dadka kale. wakhtigaaga ku bixi kobcinta naftaada halkii aad ku lumin lahayd naqdinta dadka kale. maanta bilow inaad naftaada dhisto halkii aad burburin lahayd dadka kale naftooda. insha allahu tacaala waxaan rajaynaya inaad mawduucan aad ugu faa'iidaysateen intiiyo mawduuc kale. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.